kulanti wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiin baa meel kastoo aad joogtaan daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeena Nadaara Show. daawadayaal maanta waa Arbaco taariikhduna waa 15 bisha Maarso sanadka 2023. daawadayaal barnaamijkeenan waxaynu ku falanqeynaynaa arrimo muhiim ah oo ku saabsan xaaladda dagaalada waddankaasi Ukraine. haddaba daawadayaal barnaamijka waxa uu yahay kii labaad ee maanta waa Arbaca aan idiin soo gudbinayno iyadoo barnaamijkan kii ka horeeyay saacado ka hor aan soo gelinay aad ka heli kartaan isla Nadaara Show Facebook iyo Nadaara Show YouTube. haddaba barnaamijkan oo ah kii labaad waxaynu ku eegaynaa xaaladda dagaalka ka soconaya waddanka Ukraine. saacadihii la soo dhaafay waxa soo kordhay warbaahintu waxa ay qoreen sida ay xaaladdu tahay. anigoo Cabduqaadir Maxamed Cashir Nadaara ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya. soo gudbinta barnaamijkana waxaa gacan naga siiya shirkadda xawaalada ee yiraahdo Safari Remit. xarunteedu waa UK, adeegeeduna waa online. fadlan booqo boggooda www.safariremit.com. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. waa tahay daawadayaal waxaynu guda galaynaa barnaamijkeena. waxaynu ku bilaabaynaa sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan. wararku waxay sheegayaan in Ukrainiyiinta ay heleen taangiyadii ay sugayeen in muddo ah oo Jarmalku uu sameeyay ee la yiraahdo Leopard. haddaba taangiyadan Leopard la leeyahay ayaa waxaa la sheegayaa in ay ka soo galeen dhinaca waddanka Poland. hore waxay u ballan qaaday qaar ka mid ah taangiyadaas inay siin doonto Ukraine, iyadoo Canada ay horey u soo rartay qaar ka mid ah taangiyadaas si loogu hubeeyo Ukraine. haddaba warbaahintu waxay leedahay lama oga weli taangiyada yimid Ruushka baalkii Ukraine inay yihiin kuwii hadda Canada keentay iyo kuwii ay keentay Poland, laakiin waxaa leeyahay taangiyadaas qaar ka mid ah waxay hadda gacanta ugu jiraan ciidanka Ukraine. waxaana leeyahay taangiyadaas waxaaba loo soo dhaqaajiyay qaarkood goobaha dagaalada sida magaalada dagaalka xun oo ka socdo ee Bakhmut, halkaasoo taangiyada Ruushku ay joogaan T90. marka halkaasaa la isku farasaari doonaa oo la isku arki doonaa. si kastoo ay arrintu tahay, war cusuba marka soo baxay oo dhinaca Ruushka ka yimid oo warbaahinta adduunyadu qaarkeed ay faafinayaan. Ruushka wuxuu leeyahay waxaan sameeyay oo aan sugayay in taangiyadan ay gacanta u soo galaan ciidanka Ukraine. wuxuu marka Ruushku sameeyay gantaalaha lagu gubo taangiyada oo maaragtay nooc casri ah. hore way u jireen laakiin dib u habeyn lagu sameeyay si ay ula jaan qaadaan tiknoolajiyada cusub ee casriga ah ee ay NATO taangiyadeeda isticmaalayaan. haddaba marka gantaalaha garabka laga gano waxaa la yiraahdaa Cornet. dhowr siyood u shaqeeyaa. marka Cornet wuxuu u shaqeeyaa baabuurta dushooda waa lagu xiraa 4 dhuumood asagoo leh oo saas isaga hooseeya oo 4 xaba ah ayuu ku xirmaa. mida loo kala furaa askarta infantryga ee socota ayaa qaadanaysa. marka maxaa lagu soo kordhiyay tiknoolajiya ahaan? Ruushku waxay leeyihiin waxaa lagu soo kordhiyay wuxuu ku shaqeeyaa laserkaas wuxuu doonanayaa waxaa la helay xogta waxa ay ka samaysan yihiin taangiyada NATO. marka magnetkooda wuxuu doonanaa taangigaas. marka waxay leeyihiin taangigan wuxuu taariikh ku dhigi doonaa oo uu meel saari doonaa
taangiyadan soo socda ee ay leeyihiin NATO ee Ukraine ay soo qaadanayso. mid kale marka aan idin xusuusiyo, ruushka waxay leeyihiin taangiga in la gubo iyo in la qabtaa dhaqaalo fiican lagu siinaa askari. waxay rabaan waxa kan inay furfuraan ee arkaan. sidii aan hore idinkugu sheegay, waxay u dhiibayaan Iiraana loo geynaa. Iiraan meeshaasaa lagu furfuraa, Chinese iyo kulli way imaanayaan, meeshaasaa lagu baaraa. marka taangiyadii hubkaasaa soo saarnay dheheen. haddaba hubkan iyo waxa uu yahay ayaa waxaa dhabagal ku sameeyey Al-Jazeera oo aada usoo ogaatay waxa uu yahay hubkan. haddaba warbixintan ayay ka qortay Al-Jazeera sida hubkan uu ula falgeli karo taangiyada cusub ee ay soo siinayaan NATO Ukraine. haddaba sida aad arkaysaan, Al-Jazeera waxa ay qoraysaa Ukraine maadaama ay la wareegtay qaar ka mid ah taangiyadii Jarmalka ee casriga ahaa nooca loo yaqaano Leopard, waxaa markaa hadda soconaya in taangiyadaasu ay howlgalkooda caadiga ah fuliyaan. haddaba warbixinta waxaa sidoo kale ku jira waxay adkeeyeen ama sheegeen mas-uuliyiin militariga ruushka ka tirsan awoodda gantaalaha sawaariikhda ruushka ee looga hortago taangiyada garabka laga gano, kuwaasoo ay sheegeen in markaa NATO ay meel saari doonaan oo ay la yaabi doonto marka la isku helo goobaha dagaalada. waxaa sidoo kale qaybtan ay ka hadlaysaa gantaalkan cusub ee la yidhaahdo Kornet ee uu sameeyey ruushka. waxa ay leeyihiin gantaalkan goobaha dagaalada wax badan buu ka bedeli doonaa, waxaana ay ugu magac dareen marka loo turjumay luqadda carabiga qaatilu dabaabaad ama dilaaga taangiyada ayaa la dhahaa ayay dheheen. marka NATO iyo hubkeeda reer galbeedka ee casriga Ukraine la keenayo waxaa sugaya marka alaabtaas Kornet la leeyahay. marka taangigan marka baabuurtana waa la baalkan qorigan baabuurtana waa la saaraa. baabuurta marka la saaro 4 ilaa 6 u noqdaa, sida BMK oo kale Soomaalidu way yaqaanaan, dhuumo isdul fuufuulay waayo. 2 sakan ayay ku diyaar garoobaysaa, ayay meesha loogu talagalay ku gaaraysaa marka la helo waxa ay rabaan inay toogtaan. ama taangiga marka la arko 2 sakan kuma qaadanaysaa la leeyahay. marka waxaa la yidhahdaa qaatilu dabaabaad almudammir. Bakhmut waxaa leeyahay saacadihii ugu dambeeyey dagaalkii wuu isbedelay. dagaalkii wuxuu isku bedelay in luuqluuq la isu galo, in magaaladii la isku riiqmay, magaaladii waa burburtay, waa la isku baaba'ay meeshaas. ciidankan Wagner la leeyahay ee ruushka ayaa iyagu horumaraan sameynay, laakiin horumarkoodu macno weyn ma sameynayo. magaalada aada la isugu baaba'ay. nimankii Ukrainiyiintaana naftay agdhigeen, magaalada waxay agdhigeen nafta. wariyaashu waxay leeyihiin 7 bilood ku dhawaad ayaa magaaladaas lagu dagaalamayaa. 7 bilood way kusii dhowdahay markii duqeynta lagu bilaabay laga bilaabo ilaa marka dagaalka gulufka ruushka uu ku qaaday. waxay isku noqotay yiraahdeen 7 bilood. ninkii marka Wagnerka ruushka madaxda u ahaa ayaa hadlay, wuxuu leeyahay ciidanka meesha ku jira waa ciidan badan, dhulka hoostiisa ku jiraan, waana ciidan aan Ukraine ahayn. shaki uu qabaa. wuxuu is leeyahay ciidamo Poland iyo meelaha NATO iyo laga soo arooriyay kuwa calooshooda u shaqaystayaala ama meesha lagu soo guray oo Ukrainiyiinta. wuxuu leeyahay maalin walba waxaan dilnaa askar fara badan, haddana way soo socdaan, waa dilaynaa, way soo socdaan. marka wuxuu yidhi ilaa 70,000 ayaan ku qiyaasaynaa ciidanka meesha ku jira ee nala diriraya, mar walba soo galaya. 70,000 ayay tiradoodu dhanta u leeyahay. marka xaaladdu halkaasay mare. weli magaaladii Bakhmut laguma kala bixin, xaalkuna waa saas. sidoo kale wararkii ugu dambeeyey diyaaradii aan barnaamijkii hore ka sameeyey, warar cusub oo kasoo kordhay waxay sheegayaan in xaaladdu hadda ay degan tahay. diyaaradii Maraykanku lahaa ee droonka ahayd ee lagu riday muxuu ahaa badda madow dusheeda
barnaamijka ka sameeyay saacado ka hor Facebook iyo YouTube-ka labadaba waad ka daawan kartaan oo dhowr saacadood ka hor ayaan barnaamij aad u qiimo badan ka sameeyay oo ruushka ay yiraahdeen anagu ma soo ridin diyaaraddaas marka hadda waxaa leeyahay wariyaashu waxay leeyihiin xoogaa xiisadii labadii dhinacba way dejiyeen marka wax dhibo weyn ma jiro oo Mareykanku iyo ruushka u dhaxeeya daawadayaal barnaamijkeeni oo ahaa kii labaad ee maanta aan idinku talagalay oo aan ku eegaynay arrimaha ruushka iyo wixii ka soo kordhay inta ayaynu ku soo gabagabaynaynaa waa mahadsantiin meel kastoo aad joogtaan anigoo Cabdiqaadir Maxamed Cashir Nadaara ayaa idin socodsiinay inta aan mar kale kulmayno haddii alla idmo barnaamijka lamida waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiin sidaas iyo nabadgelyo